السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا أصحابتي من البيت ونقدوكتان كسر دوادا جنال كنا فضل دا جنال كأستين سبسكرايب سعر آدي هذا المسجد. أوكي. السؤال تاعكم waxay tahay sidaaban naftiida xor oo ka dhigi karaa ma doonaysaa naftaada inaad xor uga dhigtid oo noqdo shakhsi isku kalsoon wax walbana qabsad marka ugu horeyso wax la yiraahdo self confidence ama kalsooni naftaada inaad ku kalsoonaato isku day marka koobaad aan ku sheegay waxay tahay isku dayin inaad dadka oo dhan raali gelisid marka aan kula dadka oo dhan raali gelisid waxa weeye inaad qof walba aad raali gelisid waxa uu rabo aad u samaysid tan saddexaad sidaan ognahay qof walba bilaadan ilaahay wuxuu siiyay heybad u gaar ah ama talent u gaar ah la imaw oo soo bandhig oo bulshada soo bandhig talentiga adiga aad leedahay waa macquul inay bulshada ka hesho tan afraad aan ku sheegay waxay tahay shaqa maanta ku taala dib ha u dhigin sababtoo waxay ka saacidaysaa inaad maanta wax aad rabtid aad qabistid haddaad tiraahdo laakiin maanta shaqa ay taala bari baan qabanaya waxa macquul ah birnaada qaban saadan baad qaban tan shanaad ahow mid qalbi xaaran oo xumaan oo dhan ka fog haddaad mar xumaan ka fog tahay bilaadanka inuu ku jeclaanayaan oo ku soo dhaweynayaan nin waxaad noqonaysaa bulshada laga xiiseeyo tan lixaad mar walba isku day in aad dadka ku caawin kartid wax ay kaaga baahan yihiin sababtoo waxa macquul ah inaad wax dadka garin adiga aad garanaysid qof walba bilaadan oo garabkaaga soo baxdo caawi wax aad ku dhaantana ku caawi tan toddobaad waxaa weeyaan bulshada dhexdeeda ha ku yeelan cadow inaad bulshada cadow ku yeelatid waxay ku keeni kartaa in maaragtay bulshadii kala barba inay ku nacdo marka inaad bulshada ku yeelatid cadow iska ilaali marnaba haddaad qof social media ku dhex jira iska ilaali bulshada cadow dhex yeelatid noloshaada jadwal u sameey oo lahow tan sideedaad waxaa weeyaan noloshaada jadwal u sameey oo lahow hami fog. Caught in the crossfire.